nimanka daaroodka la yihahdaa markay meesha qabsadaan iyagu niman xukun doonaya weeyaan iyagoo cayri ka tagaan ya sheekh shariifna isagu caqli uu xoolo ku urursadana ma haysto caqli dawladdu hayo ku ilaaliyana male laakiin waa laga hoos shaqaystaa isaga laakiin tolkiisa ka hoos shaqaysta laakiin xasan isagu isagaa xoogsada oo shaqaysta markii hore ka tegayna xoolo kala tegay maanta shakhsiyaad ya tolkiisu aad buu balaariyay shakhsiyaad baa rujida ma fahmin inta lacagta qaadatay dawladdii shariif waqtigeedii heshay abgaalun bay cid kale wax kama helin qaar ka mid ah abgaal qaab ka mid ah abkilaha saasan jeedaa tol ah shakhsiyaad qoys balaaran ku soconaa laho xasan laakiin familigiisa ma dhaafsisana ya xasan familigiisa ma dhaafsisano waxa ugu liitaa wacaysla ugu liitaa dawladda markaynu run sheegno xilal iyo meelaha uu siiyaa uu burburiyaa laakiinse dhaqaalaha isaga baa booska laakiin waxaad markaan kuu sheegay raggii hore ragga han labay ahayn cigaaloo kale shil kama tegin xoolihii aabihii iyo qaniimadii iyo tijaaradii oo dhan ku dhameeyey waxa weeyaan siilaanyoo kale shil kamuu dhaqan dalka islaantan baabaheed xoolo uga dhintay ya caruurtiisana muu korin dee halkan buu ku jiray amina waris baa xoolo reerkooda uga dhintay iyadoo tacabka uun meel kasta ha ka soo dheegtiyey oo ma odhan karo dawladdii odageedu uu markaa joogay wax kama yehelin ma odhan karo laakiin tacabka islaamtu ay leedahay unbuu ahaa tacab oo soo jireen oo hanti soo jireen oo aabaheed iyo walaalkeed ba ay hanti ka dhaxashay ayaa meesha jiray laakiin siilaanyo xoolo kama tabcan cabdullaahi yusuf kama tabcan farmaajo waxba kama tegin waa la magan geli isagoo aan shilin haysan buu madaarka guriga keladiisi waa laga dhiibay markii uu ka baxay rag dee han leh bay ahaayeen rag caynkaasi bay ahaayeen siyaad bara ka waransaga siyaad bara shilin kama tegin kama shaqaysan lixdii sanee hore intii aan inqilaabkii ciro iyo aanay dhicin lixdaas sane ay isku duubnaayeen golihii sare kacaankuna dalka intuu ka qabtayna waa la ogaa halkuu gaadhsiiyeyna waa la ogaa intii gaadhigu la aqlimayna waa laga faaidaysto cayladiisii baa si xun mismanagement fara badan samaysay oo dee ninku markuu gidda-oobo waa lala shaqeeya oo laga hoos shaqaystaa waayahay haddaay hadalkaaga waxaa ku jiray socdaalka iraahda 25 guuradii carta ka soo wareegtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa waqti loogu darayey xasan sheekh maxamuud horeyna waqti uguma darsanin waraysi dhowaan laga qaadayna waxa uu sheegay in uusan waqtigii loogu talagalay uusan dhaafaynin xagee keentay adigu waqti ugu darsanaya horta xasan markaad la sheekaysato ama dadka la sheekaysta aad waraysato xasan sheekh maxamuud tii hore inuu nacasnimo sameeyey oo bahashii dowladnimadii si yar isaga dhiibay oo doorashadii looga helay ayuu aaminsanaa laakiin maanta xasan berigaa hore sidii aanu wax u qaadan jirina tribkan waa u qaadanayaayo inaanu adduunna dalka kaga tegin kursigana aanu ciyaar kaga tegin baa xasan ka go-an waddadu u shaqaynayaana waddo soomaali uu kaga tegayo oo tanaasulayo oo doorasho dhib la-aana haddaan colays ama international communityga ama aan kacdoon gudahay ku kicin xasan nin doorasho waqtigeediina dee waaba dhammaadayba dee 4 bilood baa ka harsan umana diyaarsana doorasho umana socdo qof iyo cod iyo waxbuu ka hadlaya marka ayaan dhowna markay timaado muddo kororsi buu odhanaya ama sidii farmaajo ba ilaa uu kororsado way ku soo oodantaye ha ku soo oodantaa ma socto laakiin xasan uma socdo inuu doorasho qabto wadadeediina ma hayo haddaan dadka been loo sheegin